kulanti wacan oo wanaagsan daawadi halkan waa madasha wararka qodobada warkaad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya dowladda Soomaaliya oo shaacisay in la qaarijiyay madaxii shabaab maaliyadda u qaabilsanaa ee gobolka Bay waxaan ku soo gudbin doonaa howlgal culus oo madaxii maaliyadda shabaab ee Bay lagu qaarijiyay iyo xubno kale oo markaas howlgalkaasi lagu qaarijiyay ayaan daawadayaal idiin soo gudbin doonaa iyo sidaas oo kale shakhsigan magaciisa iyo goobihii hore markaas uu kaga soo howlgalay iyo xilalkii hore ee uu soo qabtay ayaan warkayaga idinkugu soo gudbin doonaa sidaas oo kale qodobada aad daawan doontaan inaan idiin soo gudbin doona waxaa qayb ka noqonaya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kulan degdeg ah la yeeshay saraakiisha ciidanka amaro culus oo uu madaxweynuhu bixiyay iyo deegaano si degdeg ah in lagu qabto oo madaxweynuhu amray ayaan daawadayaal idiin soo gudbin doonaa warkayagana aad ku daawan doontaan sidaas oo kale qodobada warkaad ku daawan doontaan inaan idiin soo gudbin doona waxaa qayb ka noqonaya taliyaha guutada 25aad ee Khalid bin Walid Shah Macabi qoyskiisa oo war culus soo saaray haddaba maxay ka yiraahdeen nolol iyo geeri waynu idiin soo gudbin doonaa warbixinta qoyska ay soo saareen ayaan daawadayaal idiin soo gudbin doonaa oo warkayaga aad ku daawan doontaan wasiirka difaaca dowladda federaalka Soomaaliya fariin ayuu shacabka u diray haddaba muxuu yiri waa warbixin warkayaga aynu ku daawan doonaa qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordha inta warkayaga aynu ku guda jirno ayaan si wada jir ah u daawan doonaa asaatee daawadeen ku xasuusiyo haddii aad nagu cusub tahay in boggeena aad soo follow gariso muuqaalkeenana laag aad saartay si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyada halkan aan kugu soo gudbiyo ee ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay dowladda Soomaaliya waxay shaaca ka qaaday in la qaarijiyay madaxii shabaab ugu sareeyay ee markaasi u qaabilsanaa gobolka Bay waxayna dowladdu tilmaamtay in howlgal culus markaas lagu dilay dowladda federaalka Soomaaliya faahfaahin dheeraad ah waxay ka bixisay howlgal qorsheysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa lagu sheegay in howlgalkaas lagu qaarijiyay madaxii shabaab u qaabilsanaa arrimaha maaliyadda ee gobolka Bay iyo saraakiil kale oo markaas howlgalkaas lagu dilay ninkan wuxuu shabaab u qaabilsanaa lacagaha baadda ah ay kooxdu ka qaadi jireen dadka ka yimid deegaanadaas ayaa la yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in deegaanadu ay qayb ka yihiin garaar warta dollar iyo halka la yiraahdo wali bagaal iyo tuulooyin kale oo ay markaasi ay duray ee gobolka Bay dhacday qayb ka tahay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in madaxii maaliyadda ee gobolka Bay u qaabilsanaa shabaab lala digilay horjoogyaal kale oo kooxda ka tirsan inkastoo aysan shaacin markaasi kooxda kale ee la dilay magacyadooda howlgalladan waxaa laga fuliyay deegaanada kala ah halka loo magacaabo adeegow garaar warta dollar walay bagal iyo deegaano kale oo qayb ka yahay eelay duray ee dhacda gobolka Bay waxayna dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay in howlgallada qorsheysan oo sidaani oo kala laguna bartilmaameedsanayo xubnaha sarsare ee ka tirsan kooxda in markaas aad loo sii badinayo sidaas oo kale howlgal kale ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka waxaa horey loogu qaarijiyay shabaab markaas shaqsigii u qaabilsanaa dhanka deegaanada Galmudug oo magaciisa lagu sheegay Qaliib Gambe iyo xubno kale oo markaas la socotay duqeyn dhanka cirka ah ee ka dhacday tuulooyinka u dhaxaysa deegaanada Ceel Garas iyo Ceel la helay ayaa sidoo kale waxaa lagu burburiyay laba gaari oo Cabdibilaah oo ay la socdeen saraakiisha la dilay iyo markaas xubno kale oo maleeshiyad ah saraakiil dhowr ah oo ka tirsan kooxda ayaa lagu dilay howlgalladii ugu dambeeyay oo ay fuliyeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaana muddooyinkii aynu ka soo gudubnay si aad ah u kordhay howlgallada qorsheysan oo iska kaashanayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka kuwa oo markaas lagu bartilmaameedsanayo xubno sarsare oo kooxda ka tirsan fariisimo markaas kooxdu ay markaas ku leeyihiin qaybo kamid ah gobolada dalka waxaana korortay muddooyinkii u dambeeyay howlgalladaas qasaaraha lagu gaarsiinayo kooxda markana aynu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wali waxa uu ku sugan yahay magaalada caasimadda ah maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb halkaas waxa uu ka wadaa guluf dagaal oo karana kooxda shabaab waxaana ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo culus madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ka go'an dagaalka ka dhanka kooxda shabaab madaxweynaha Soomaaliya waxa uu markaas xarunta howlgelinta ciidanka markaas xoogga dalka Soomaaliya ee Dhuusamareeb kulan uu kula qaatay saraakiisha guutooyinka gorgor ee militariga Soomaaliya
madaxweynaha waxa uu ka dhageystay saraakiishan warbixinada ku saabsan dagaalka markaas lagula jiro kooxda shabaab. madaxweynaha waxa uu ka hadlay muhiimadda dagaalka ciidanka xoogga dalka iyo dadka markaasi Soomaaliyeed ay kula jiraan kooxda uu leeyahay jiritaanka dadka Soomaaliyeed in markaas hoosta ay si wada jir ah uga xariiqeen in markaas si gobonimo loo dagaalo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dagaalkani ku tilmaamay mid la mid ah dagaalkii lagu raadinayay xurriyadda shacabka Soomaaliyeed iyo qarankooda loogana soo horjeeday gumeystayaashii shisheeye. waxaan ku jirnaa dagaal waafaqsan mabdi sharcadeed islaamka ah loogana hadlayo sidaas oo kalena looga helayo ajir alla agtiisa yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. dhammaan xubnihii saraakiisha ah ee uu markaas dhusmareeb kula kulmay waxa uu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka culus ee markaasi dowladdu xilligan ay kula jirto kooxda shabaab isla markaasna ka soconaya gobolada dalka. waxaa fadhiga ka soo muuqday xubno sarsare oo markaasi saraakiil ah qaybna ka ahaa howlgalladii ugu dambeeyay ee dalka ka dhaca. sidaas oo kalena madaxweynuhu waxay siiyeen warbixino ku aadan dagaalada soconaya iyo sidaas oo kale dagaaladii dhowrka ah ay kooxda la galeen. waxaana madaxweynaha iyo saraakiisha uu la kulmay si wada jir ah markaas isugu afgarteen in la sii wado howlgalka dagaalka ka dhanka ah kooxda shabaab oo ay dowladdu xilligan ku jirta. markana aynu imaano arrimaha la xiriira arinta taliyaha guutada 25aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Khalid bin Waliid Shaah Macabe. qoyska Kornel Shaah Macabe waxa ay tibaaxeen in markaasi xilligan wali naf nolol iyo geeri intaba ay ku laayihiin. dowladda federaalka Soomaaliya waxay u direen baaq ku aadan in warbixin laga siiyo muddada ku dhow bisha oo aan wax war iyo wacaal ah intaba laga helin. walaalka la dhashay waxa uu sheegay in markaas dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga fadhiyaan fariinta ku aadan in haddii uu dhinto xogtiisa ay helaan, haddii nool yahana markaas noloshu ay ku helaan, maadaama weli aysan u kala cadaanin nolol iyo geeri halka uu markaas ku maqan yahay. qoyska uu ka dhashay Shaah Macabe ayaa si wada jir ah Muqdisho warfidiyeenada ula hadlay, waxayna ka hadleen arrimaha la xiriira wiilkooda. waxay tibaaxeen tan iyo sidii uu u dhacay dagaalka cusweyne war iyo wacaal intaba in aysan ka helin. waxayna dowladda federaalka Soomaaliya si wada jir ah ugu direen baaq ku aadan in markaas ay helaan xogta wiilkooda. waxay tibaaxeen in markaas ay u baahan yihiin haddii uu nool yahay in markaas nolol ay ku helaan, haddii uu geeriyoodana sidaas oo kale u baahan yihiin in loo xaqiijiyo geerida wiilkooda, maadaama ay u baahan yihiin in ay ku sabraan nolol iyo geeri intaba. daawad waad ku mahadsan tahay la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga. haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee barteena YouTube aan ku xasuusiyo inaad subscribe saarto, muuqaalka like aad saarto si mar weliba aad u hesho wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka halkaan kugu soo gudbina qaybta hoose commentiga noogu reeb faaladaada kaaga aadan. mahadsanid daawade.